buurba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa xuseen عجيب siduu ii barkaday hurda kama bogto i bariisayo waygu baahaye adaan ku bukaaye may bogsin kartaa inay nabadu marinkii xornimo jidka loo maarayo tiirkii midnimaadiyo nolosha u magaaltahay aniguba dadkaanay danadii ku gaadhiyo daqarkaad qarisee halkan maanta waxay la fadhiyaa ilaahay baa weynee fanaankii weynaa Farxaan Xidig oo aanu maalmihii u dambeeyay wada deganayn hoteelka Sky Hotel ee ku yaala magaalada Jigjiga Farxaan isagoo degan baan u imi halkan aanu waqti ku wada qaadanay 3 cisho u dambeeyay Farxaanow waxaan ka mid ahay dadka heesaha aad ku daawan jiray waliba kuwa talantaaliga ah ee aad fanaaniinteena hore la qaaday oo loo karo waxay ahayd xusuus cajiib ah oo ay habla hore waaweyn iyaguna muxuu ahaa la qaadeen bal heesaha mid ka mid ah hadii aan soo qaato heestii aad Maryam Mursal qaaday ee ahayd buurba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa heestaa midii laba mid naga maqashin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد السمد سمعدا آد بان قرا ugu faraxsanahay la kulankaaga inaan ku kulanay Sky Hotel Jigjiga waan ku faraxsanahay haddaan dhagaha iyo indhaha iska maali jirnay inaan maanta goobjoog wada joogno marka waan ku faraxsanahay xiriirkeenuna sidaa u bilaabmay buu joogto u ahaanaya inta nafka ku nool marka aad baan ugu faraxsanahay dhageysiga aad dhageysan jirtaa ma muuqaalkii aad daawan jirtayna de waxa weeyaan Soomaalida un baan kamid ahaayo hadda taageerahayga waan kaaga mahad celinayaa saddex waayadan waan ka diga rogto xagga siyaasadda aan u diga rogtay marka heeska adiga codsatay heeskaasi Maryam Mursal ilaahay caafimaad sareecan ay noo siiye imka London bay ku nooshahay Hargeysa joogtay adoo 3 wiik hor London bay ku noqotay caafimaad ilaahay siiyo waxa weeyaan fanaaniintii haldoorka qaranka ummadda Soomaaliyeed xidigaheegii bay kamid ahayd marka waxaan la heesay Maryam Mursal Saare Axmed Amina Cabdilaahi iyo Kaltuun Bacada oo xidigadii Djibouti marka heeso badan oo isla leenahay baan bacda la qaaday heesahan dib u soo qaaday ay dadku iga codsanayeen waxa kamid ahayd Saare Axmed iyo Amina Cabdilaahi iyo Maryam Mursal heeskan siduu ii barkaday hurda kama bogto i bariisayo waygu baahaye adaan ku bukaaye may bogsin kartaa buurba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa xuseen عجيب buurba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa heesta waxa ku jirtay buulaha xargagan ee laga baqo anigana baxsane bartankay dhigay sida buuraha xargagan waxay ku yaalaan buuraha xargagan waxay ku yaalaan Sanaag lascano dagtida waxaan maqlay in buuraha xargagan ay ku noolayd shaka muxuu ahaa shaka fanaadii dhagdheer وسيدا شيكادان ku maqlay sida shaka ku maqashay san sheekada ku maqlay waa dhul qurux badan dhulka geeyinka Soomaaliyeed ee ugu qurux badan bay ku jirtaa marka ciid cas marka wan arkay waa meel qurux badan barigi horena laga baqan jiray hees baad la qaaday Amina Cabdilaahi heestaas waa heestii ahayd sanbabada ay qalan oo wadnaha ay saran oo dhiiga saydhanay may waxay ahayd baldan oo isku baldan ugu daran shay halaga daweeyay bal heestaan luqadeena maqashii heeskaasi Allah u naxariistay labadoodaba Allah u naxariistay waxa la qaadi jiray Maxamed Axmed Kuluc Amina Cabdilaahi Xirsi riwaayadii waxay ku jirtay Nibati Maxamar
aniguba dadkaanay danadii ku gaadhiyo dakharkaad qarisee madegana warkaaguye bal ducuun isugu baydh wixii kuugu daranshay ha laga daweeye. farxaanow heestii kugu horeysay ee aad qaado ee adiga fanaan kuu dhiibo ma xasuustaa? haddii aad xasuustana teebay ahayd luqdana noo raacay. wallaahi horta heesaha iigu badaneen qaado waxaa la yidhaahdaa siciid abubakar ilkajiir baa la yidhahdaa oo heesaha aan bacdo isla qaadnay iyo kuwo keliyaan qaadaba mise heesihii iigu horreeyey wuxuu ahaa hees allah u naxariistee fanaan caan ahaayoo soomaaliyeed oo cabdiraxmaan raas lo odhan jiray ayaan hees lahaabaan aan jabuuti masrax iigu horreeyeen qaaday heeskaabaa iigu horreeyey ragba hawsha guudnimo wada gudboonyo ninba cuduru gaara loo saaray guudkee annataygu gooniya gofadhigeedii hurdo gibidhsan waay markaa oo dee cirkaa la tegayaa waan xoogaa wayar gaabinaya. sidaynu ognahay soomaalida meelo badan waxaa ka holacaya dagaal, haddii uu noqdo dagaal qabiil iyo haddii uu noqdo dagaal siyaasiyaba. miyay jirtaa farxaanow hees nabadda iyo arrimaha ku taxalluqda oo aad doonaysa inaad colaadaha ku damiso oo aad qaaday? heeska waxaa qaadi jiray kooxda xarbi aan ka tirsanaan jiro xarbi oo Djibouti ciidanka Djiboutiya. marka heesku waa hees riwaayad samatalis la yiraahdo ku jiray abwaan cali gaab baa sameeyey. heesku markaa wuxuu ka warramayaa dhulka adduunka horumaray iyo afrikadan isku meherad seegtay inay nabadu marinkii xornimo jidka loo marayo tiirkii midnimaadiyo nolosha u magaaltay dowladaha hore u maray sida ay u maalaan iyaga ka marag furi midiyaha coolaadee dagal laysku madhiya maydkoon la kala garan dhulka oo magoomo maadha soo baxayo laga waayo midhihii meehana uga gaajada soomaalida madowwe isku mehera seegtiyo kuwa soo mara garan. farxaanow jacaylka doortanu buug baan qoro arrimaha jacaylkan gaar ugu taxalluqa. jacaylka sidee sutiin? waan isla dhalannay sabankan la joogo doorta waqtigii hore iyo waqtigan dambe jacaylada qaabka loo jiraa aad bay kala duwan yihiin. awal hore shakada dadka dhalinyarta sheekaystaan may badnaan jirin markiiba waa la isku yaaci jiray. laakiin sabanada dambe waxaad moodaa in ilaa sekondarigii ilaa jaamacaddii dad wada socda la arkayo oo 8 sannadood 10 sannadood. maxaad ka oran lahayd jacaylka muddada dheer la jilayo aan marka qaarkoodna natiijada aan la gaadhin? wallaahi jacaylku guurka xalaashuu ka dhashay wada socodkaasi diin ahaan iyo dhaqan ahaanba uma fiicne. waxaan odhan lahaa qofku kolkuu dookhaaga noqdo oo hadduu ilaahay calaf isku kiindaro inta aad wada sheekaysanaysiin waxa ka fiican inaad isxalaashatiin. jacaylkuna halkaabuu ka bilaabmaa. markaa waxa weeyaan anu jacaylka waan isla dhalannay wixiis jecelna waan jecelahay jacaylka laftiisaan jecelahay. marka guur laga hadlayo wuxuu u baahan yahay diyaargarow. soomaalidana waad ogtoo meherkii iyo arooskii iyo wixii waa qaali iyo lacag bay u baahan yihiin. qofka aan intaa hayn haddana wax jecel maxaad kula talinayd? waxa weeyaan jacaylka dhabta ah labada qof hadday jacayl dhaba isku hayaan ma jirto shuruud wax la yidhaahdo oo ay lacag isku xidhayaan. marka nin gabadh danleeya ama nin danleeya uunba wax isku xidhee hadduu labada qof jacayl au dhex maro waxa weeyaan wax allii wax condition ay ku xidhayso ama su'aal ay ku xidhayso ma jirtee xalaashaa ka fiican dhaqan ahaan diin ahaan iyo asluub ahaanba ka fiicane guurka ha la fududeeyo
jacaylka lagu sii tala tegayna waxa ka fiican jacaylka guriga ayaa ka fiican qofka wax baranaya haddii noqoto secondary haddii noqoto jaamacad ma kula talin lahayd jacayl samee may kulama taliyeen waxa weeyaan salaad bashinkii joogtaa la tukadaa waxa fiican inuu horta dantiisa iyo mustaqbalkiisa gaaro kadibna maaragtay sidoo waxa la yidhi col hortiyo hub samayso caruurtiina xoolo dhaqo marka waa inay horta samaystaan hadafka uu leeyahay qofku ama iskuulka uu dhiganayo inuu ka lib keeno kadibna nolosha isagoo oona qofka lamaanihiisa aan waqti ka khasaarin hadday gabadha tahay hadday wiilka tahayba inay sidii ugu dhaqsaha badan leh ay isku xalaashan lahaayeen oo jacaylkooguna u midho dhali lahaa soomaalida waxaa jira dad badan oo inta jacayl soo wada jileen nolol wadaagay kadibna guurkoodii uu burburay taasina waxaad mooddaa inay aad ugu badan tahay oo waxaad mooddaa dhaqanadii westernka inuu ina soo galay dadka maxaad kula talin lahayd sidee bay u adkaysan karaan u heshiisan karaan guurkooda inay si wada noolaadaan si wada jiraan furninkana ay uga hortagi karaan والله waxa weeyaan waa masiibo ku soo korodhay ummadda Soomaaliyeed anu qurbaan ka yimiday sumcad waxaan ka yimiday Cabdi Samed waxaan ka yimiday qurbahana burburka reeraha ee burburaya waxa weeyaan caruurtana uma fiicna labada qof ee lamaahana uma fiicna marka intii la isku samri karayo ee la isku tanaasuli karayo ee xariga Ilaahay la qabsanayo ee dhaqankeena suubana la ilaalinayo hindida iyo dadka ajnabiga ee nala jooga Yuruba dhaqankooda iyo asluubtooda iyo diinta haystaan si fiican bay u haystaan inaga diinteena aad baa loo haystaa oo Soomaali waxa weeyaan dalka adduunka meel kasta ay tageen dadka diinta u hiiliyay weeyaan dhaqankana ha u hiiliyaan sidii diinta ugu hiiliyeen dhaqankana ha u hiiliyaan guryaheenuna waxay ku dhismayaan ku bololayaan inuu qofku diintiina haysto dhaqankiina haysto marka waxaan leeyahay Ilaahay isku yasiro qalbigoogana burcad Ilaahay isku mariyo hablaha Soomaaliyeed iyo nimada Soomaaliyeed ee qurbiye gudaba reer ku yagleelay ama reer ku yagleelay inuu Ilaahay qulubtooda isku soo jeediyo taasan ku dhameyn lahaa farxaano markaad u heesayso ama social media ka soo muuqanayso lagu marka badan ayadoo xaaskaaga ay ku ag taagan tahay dhalinyartan dambana waxaad moodaa inay xaaskii banaanka keenayaan oo soo muujinayaan maxaad kula talin lahayd waxa weeyaan wax walba wuxuu leeyahay wax suuq public oo dadka maartay bulshada aad la wadaagaysi iyo wax gaar ku ah marka marwada waa wax gaar ku ah in ku asturnaato oo gurigaaga kuugu ekaato oo noloshaada ku ekaato marka waxa leeyahay dhalinyartaasi sidaa sameynaysa inay ka waantoobaanoo waa wixii sidii hore loo yiri abwaanadu u yiraahdeen wixii lagu faani jiray ma laga faanaya marka dhaqanka lagu faani jiray in laga faano maahina dhaqankeena hal xajiyo ma sha Allah farxaan wad macsan tahay Allah ku sharfo aad iyo aad